ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin fiidiyogan like saar asxaabtaada la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka. qisadan aan maanta ka sheekayn doono waa qiso dhaba oo ku dhacday wiil yar oo agoona kadib markii uu damac ka galay naagtii uu aabbihiis qabay. haddaba qisada naxdinta leh siday u dhacday barnaamijka ayaynu maanta ku dahqaadaynaa. wiilkan yar ee qisadu ku dhacday ayaa ahaa mid la noolaa hooyadii iyo aabbihii. kadib markuu wiilkii ilaa 10 sano jiray ayaa waxaa dhimatay hooyadii. dhowr bilood kadib markii wiilkii hooyadii ay dhimatay ayaa wiilka aabbihii wuxuu guursaday gabadh dhalinyaro ah oo dhowr iyo 10 jir ah. wiilku wuxuu ku noolaa guriga aabbihii iyo naagtii uu soo guursaday ee ay deganan yahayeen gurigooda. waa gabadh yar, waa da'da 18 sannadood. sidoo kale wiilka aabbihii wuxuu aadi jiray waddanka Sacuudi Arabiya isagoo halkaa ka soo shaqayn jiray. weliba badanka wuxuu ku maqnaan jiray waddanka Sacuudiga sannado badan. marmarka uu fasax helo unbuu dalka iman jiray. waxaa dhacday in sidii caadada ahayd odaygii markii uu naagta guursaday uu ku laabto waddanka Sacuudi Arabiya. halkaasna uu muddo badan ku maqnaa. kadib odaygii wuxuu helay fasax dhowr bilood ah wuxuuna ku soo noqday dalkiisii si uu xaaskiisa cusub iyo wiilkiisa ula soo joogo muddada uu fasaxa yahay. kadib odaygii waxaa ka dhammaatay muddadii fasaxa ahayd wuxuuna ku laabtay waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. odayga xaaskiisa cusbayd uur ayay yeelatay wayna dhashay. muddo dheer kadib haddana odaygii mar kale ayuu waddanka ku soo laabtay iyadoo ay xaaskiisa cusubi ay ilmo u dhashay. wiilkiisii kalena uu nin weyn noqday. bilooyin kadib markii xaaskiisii la joogay ayuu haddana odaygii mar kale safar galay wuxuuna ku laabtay waddanka Sacuudi Arabiya. kadib odaygii haddana wuxuu iska maqnaaday muddo dhowr bilood ah. ugu yaraan 8 bilood ayuu maqnaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday naagtii uu odaygu qabay ay wiilkii uu odaygu dhalay ay la faraka ciyaarto. kadibna waxaa la faraka ciyaaraba waxaa dhacday in naagtii uu damac ka galo wiilkii maadaama odaygeedii oo joogin muddo badanna uu ka maqan yahay. laakiin wiilkii wuxuu u arkayay xaaska aabbihii qabo oo hooyadiisoo kale ah. kadib gabadhii waxay wiilka ku tidhi, ilow adiga ayaa caawa sariirta ila jiifsan doona. wiilkii arrinkaa aad buu diiday. naagtii si kasta way yeeshay, dhan walba way ka martay. laakiin wiilku waa uu diiday, wuu ka dhaga adeygay. ilaahay buuna ka magan galay. kadib markay aragtay inay u suuroobi karayn oo aanay u suuroobi weyday siday rabtay ayaa waxaa bilowday inay qaylo iyo oohin isku darto oo ay jaarka iyo dadka xaafadda jooga isugu yeedho iyadoo ku qaylinaysa inuu wiilku rabo inuu xoogo oo uu kufsado. dadkii family-ga iyo xaafadda ahaa iyo jaarkii ayaa isugu soo baxay. waxaana la isugu tagay wiilkii aad baana loo garaacay. kadibna wiilkii wuu ka fakaday wuuna cararay wuxuuna aaday wiil ay saaxiibo ahaayeen. wuxuuna u sheegay in qisadaasi ay ku dhacday xaaskiisii aabbihii qabay. intay damacday markii uu ka diidayna ay ka been abuuratay lana soo garaacay wiilkii ay saaxiibada ahaayeen ayaa waday wuxuuna geeyay cisbitaal. waxaana laga soo dhayay nabaradii ay gaarsiiyeen dadkii isugu tegay. waxaana la soo siiyay dawooyin uu ku dawoobo. kadib waxaa dhacday in odaygii wiilkii dhalay la wacay oo loo sheegay lagana dacweeyay wiilkiisii loona sheegay inuu sidaasi sameeyay oo isagu dayay inuu xaaskiisa ku xadgudbo. isla markiiba odaygii wuxuu ku soo baxay safar degdeg ah wuxuuna soo goostay tigidh degdeg ah. markii uu sidaa u yimi ayuu wiilkii u beydhay wuxuuna u miisay canaan iyo habaar. wuxuuna ku yidhi maxaaska aabbaha qabo ee booska hooyada kugu jirta ayaa damacday. inkastay oo dhan baan kugu ogahay. habaar ayuu faray. anigana dayro ayaad iga tahay. mar dambe ha ii sheegan aabba kuuma ihi. halkii baana wiilkii iyo aabbihii ku kala dhinteen. muddo kadib markii arrinkii ay sidii ku soo wareegtaba ayaa xaaskiisii odaygu qabay ay xaamilo noqotay. waxaana ka gaadhay 9 bilood. waxay gaadhay 9 bilood
oo ay ku dhali lahayd laakiin naagtii waxaa lagu dhibay ilmihii wuxuuna noqday mid aan dhalan oo aad loogu silciyo xanuun badan ay kala kulanto kadib waxay xasuusatay in lagu haysto dhanka wiilkii ay dulmiga weyn ka samaysay isagana lagu imtixaamayo ay tahay imtixaan ilaahay xaggiisa ka yimi ayna tahay inay cafis weydiisato suu ilaahay uga khafiifiyo dhibaatada foosha xun ee ka haysata dhinaca foosha kadib habeenada ka mid ah ayaa naagtii waxay u yeedhay odaygeedii waxayna ku tidhi waxaan rabaa inaad ii soo raadisid wiilkaagii oo aad ii keentid odaygii wuu yaabay wuxuuna ku yidhi maxaad ku falaysaa wiilkii ku xumeeyey ee rabay inuu ku kufsado oo ku farxumeeyo kadib waxay iska sheegtay runtii oo dhan waxayna ku tidhi wiilka aniga khalad ka galay anigaana ka been abuuray oo dulmiyey kadib markii aniga damaciga galay ee uu i diiday baan aniguna been sheegay si uusan aniga dadka igu fadeexadayn kadib odaygii wiilkii ayuu raadiyey magaalada meel kasta waa uu ka raadiyey maalmo kadib sidii odaygii wiilkii u raadinayay waa uu helay wiilka odaygii iyo wiilkii uu dhalayna way is heleen kadib odaygii wuxuu wiilkii u sheegay in eedadii dhibaato weyn ay haysato dhinaciisana laga haysto marka uu eedadii u tago iskana cafiyo kadib wiilkii wuxuu aabbihii ku yidhi eedaday waan cafin laakiin shuruud baan wataa shuruuddaasi oo ah inay dadkii ay igu hor ceebaysay oo dhan ay hortooda ka sheegto inaan anigu aanan damcin ee ay iyadu i damacday kadib waxaa la isugu yeedhay faamlikii waxayna hortooda ka qiratay inay iyadu damacday markuu ka diidayna ay ka been abuuratay si aanu iyada dadka ugu hor fadeexadayn kadib wiilkii wuu iska cafiyey naagtii aabbihii qabay naagtii way dhashay waxayna dhashay ilmo meyda muddo yar kadib markii ay naagtii afartan baxday ayuu odaygeedii u yeedhay wuxuuna ku yidhi mar haddaad nin kale iska daaye wiilkiian aniga dhalay aadna eedada u ahayd aad damacday kadibna aad igu dirtay wiilkaygii aan anigu dhalay waxaan rabaa inaan iska kaa furo oo aan warqadaadii aan ku siiyo sidaas baana aniga ii fiican sidaas baadna igaga fasaxan tahay meeshii ayuuna ku furay odaygii wiilkiisiina ka raaligeliyey habaarkii uguna duceeyey cafisna uu ku weydiistay haddaba dhegaysta ama daawade sidaad u aragtaa qisadan ta kale odaygu ma ku saxsan yahay inuu xaaskiisa iska furo mise waxay ahayd inuu xaaskiisa iska haysto maadaama ay qiratay dembigii ay gashay wiilkiina cafis weydiisatay fadlan fikradaada noogu reeb commentiga oo anigu ah maxamed salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu